ugu dambeyn waxa uu helay madaxweyne xasan sheekh maxamuud beddelka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Yay tahay cidda loo magacaabayo beeshe ayuu ka soo jeedaa. Maxay tahay sababta Jenaraal Odawa xilkan uu u diiday iyo shuruudda uu ku xiray madaxweyne xasan sheekh maxamuud? Maxaase ka jira in wasiirka gaashaandhigga qudhiisa meesha laga saarayo? Warbixintan ayaynu ku soo koobi doonaa. haddii aad nagu cusubtiin fadlan inagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada inagu xiran. Xog aynu helnay ayaa sheegaysa in madaxweynaha Soomaaliya uu qorsheynayo in xilka uu ka qaado taliyaha ciidanka xoogga dalka. Sidoo kale xogtu waxa ay tilmaamaysaa in la magacaabi doono sarkaal cusub oo hogaamin doono taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sarkaalkan lagu wado in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u magacaabo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu magacaabaa Jenaraal Garbi oo hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka gaashaandhigga kula sugan dalka Turkiga. Waxaana la sheegayaa in la qorsheynayo in xilkaasi loo magacaabo maalmaha soo aadan, waxaana beel ahaan uu ka soo jeedaa beesha Abgaal. Jenaraal Garbi waa sarkaal caan ah, waxa uuna aad ugu dhow yahay madaxweynihii dowladii ku meel gaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo xilligii madaxweynaha dalka uu ka ahaa si weyn ula soo shaqeeyay. Ninkan ayaa la sheegay inuu ku fiican yahay hogaaminta dagaalka, mar ayuuse caloosha ka dhaawacmay isagoo ku jira dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Maalinta Khamiista ee toddobaadkan ayay wararku sheegayaan in shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya looga dhawaaqi doono magacaabista sarkaalkaasi, inkastoo ay wax kasta isbedeli karaan. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Ibraahim Sheekh Muxyidiin ayaa dhowaan ka hor yimid hogaano cusub oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku soo kordhiyay taliska. Arrintaas ayaana waxa ay keentay in dekreeto uu soo saaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ka timid soo jeedinteeda wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka. Waxaynu ogaanay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka gaashaandhigga ay taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed u bandhigeen in uu shaaciyo warqadan lagu magacaabay hogaanada cusub oo ahaa 4 sarkaal, balse taliyaha ayaa diiday, waxayna u xayirneed dhowr habeen. Goor dambe waxaa baahiyay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo adeegsanaya warbaahinta dowladda. Wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga ayaa aad isku khilaafsan, iyadoo dhowr jeer ay isku qabteen shaqada ciidanka. Madaxweynaha ayaana ka gaabiyay khilaafka labada nin ee soo noqnoqday oo caqabad ku noqday dagaalka Al-Shabaab oo uu weli madaxweyne xasan sheekh maxamuud xal u helin. Xogtu waxa intaas ay ku dareysaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu mar quur dareeyay in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dib ugu soo celiyo taliyihii kan ka horeeyay xilka ka sii degaya Jenaraal Odawa Yuusuf Raage. Xogtu waxa ay qeexaysaa in Jenaraal Odawa Yuusuf Raage magacaabista uu ku xiray shuruudo uu hordhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aad ugu adkaaday, waxayna keentay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu raadiyo beddelka Odawa Yuusuf Raage oo dooqiisa koobaad ee magacaabista taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ahayd. Sidoo kale waxaa jirta xog kale oo sheegaysa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka fikirayo in wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga dalka hal qof uu u magacaabo si looga baaqsado khilaafka joogtada ah ee wasaaradda difaaca qaranka iyo taliska xoogga dalka uu naafeeyay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo dhowr jeer hore soo laabtay.